dowladdu arrinka way qiratay inay gordarayd waxaan soo qaadaa wasiirkeeda amniga barigaas iyo wasiirkeeda amniga maanta iyo ra'iisul wasaaraheeda oo hadda meel aan iskala jeedin laakiin xaqqa sidoo yahay in loo sheegay ta wasiirkeeda amniga shalayta waxa uu yiri ilmihiina oo wax ku dheelay aanahay ee naga raali ahaada uu yiri ma xasuusantii markaas ka soo halmaantay wasiirkeeda amniga hadda waxa dhan saaxiibaaleeya beledkan isla jooga isku generation aan nahay siyaasiyiin aan wada nahay laakiin warka sida uu yahay oo xaqa in loo cabiro waay xasan xundu wajh macaale barigaas dowladda kama tirsanay waa ka shirbay wuxuu yiri weerarku waaliyo ahaa warqad in loo qaraa wacneed weerarku waaliyo ahaa iyo horta amarka dowladdiisa hadda waaliyo u yaqiina maalinkaas ra'iisul wasaare xasan cali khayrana wixii dhacay inay xun yihiin oo ku cudur daartay warkaas macadi ama sumcad madaxweyne farmaajo dhiman marka madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay laba arrimood madaxweyne xil kastoo la gaaro iyo xukun kastoo la haayo xaquna xaq waayo xaqdarraduna xaqdarro waayo waxaa kula siman dadkaaga dowladnimada kaa dhigay cod madaxda kaa dhigay oo xilkii iyo xafiiska ugu sarreeyay kuu sharfay waxay xaq kuugu leeyihiin markaad gafka weyn oo noocaan oo kale uu kaa dhaco inaad cudur daarato oo raalliha layga ahaada aad tiraahid mid hoose iyo mid koreba xaqaa lagu leeyahay samee midka kale waxay tahay jidka noocaas oo kalea xiriirka aad la leedahay oo saaka ciidamada dhulka ku fidinaysa ay ku jirto ka waantooba iska daa taas marka haddaan meeshaas kaga baxo annaga soomaaliya dal waxaan aad iyo aad dhibaato ay uga taagan tahay mashaakilaysan berigii hore waxaa la samayn jiray waxyaabaha qaarkood waxaa la sugi jiray aakhirada laakiin hadda Facebook iyo Twitter iyo YouTube iyo balaayo ayaa yaaliin wasiirka amnigaan maqlaya baryahan asagoo wax maagmaagay oo si u hadlay shiribkiisa hore fiicnaa waa xasuusana waxyaabaha haddana aan xasuusano oo asagana aan la fiicnaadin hadhihin aan leeyahay wasiiro hadhihin aan leeyahay hadda markale adigan qofka qaldam inuu soo noqdo waa ita laakiin madaxweynaha waxaa ku filan kuwii hore ku cudur daarashadooda kuwa kale haddana in la dhaqo oo ku cudur daarto oo laga maslaxo yaanu gelinaan leenaha dadkan yaanu dhibin soomaaliya jidkay ka timi laguma celin karo horaan kaga soconaynaa qof diid ma nihin qaran diid ma nihin qumanaan baan rabnaa qaranka inuu dhismaan rabnaa nabad baan rabnaa mudaaharaadka dowladda ay dembiga ka dhigayso dembi ka dhigiddaa dembi ah laakiin mudaaharaadku dembi ma ah waayo dowladdu waa loo mudaaharaada waxaan xasuustaa golaha wasiiraha intaan iskugu nimid waxaa la keenay sharci dabar ah oo sirta ilaalinta sirta la yidhaahdo aad iyo aad u khariban marka inta laga doodayaan meesha dadka ka doodaan ku jira waxaan yidhi ha la ogaado waxaan rabaa dowlad loo mudaaharaado oo lagu mudaaharaado dimuqraadiyadda saas waayo golaha wasiiradaan ka yidhi saaxiibaday waa weydiin kartiin soomaaliya dowladda hadday rabto in iyada loo mudaaharaado keliya dastuurkay duminaysaa ceeb waayo waa inay tiraahdo maalin maa mudaaharaad rabtiin haa mudaaharaadku waa furan yahay waa ilaalinaynaa ciidanku way hareero soconayaan sharcigay ugu qoran tahay la iskuma haysto waa inay tiraahdo laakiin marka madaxweynuhu rabaan in degmooyinka looga soo baxsho loo mudaaharaado dadka kale markay damacsan yihiin loo diido dastuur dumis waayo dowlad ku dheel waayo dalku iskula jiri maayo waxaa la rabaa dastuurka iyo dowladnimada iyo hanaanka in la ilaaliyo madaxweynaha isagu yeeli haddii la yeeli lahaa maanta filla soomaaliya ma joogeen marka waxaan rabnaa sida uu yaalayna lama yeeli doono sidii hore la yeeli jiray baa la yeelaa doorasho isu diyaariyo dalka shuruucdiisa ku dhaq inta ka hartay dadkii uu wax ka helayeen ha cudur daarto intay goor goorta waa mahadsantihiin salaamu calaykum